in la suureeyaa shakhsi sanqaadkiisa mararka qaybtood waxaa la oran karaa waxay ku xiran tahay hadba xaaladda iyo xilliga taas oo suureynta qofkaas ka dhigi karta waxa uu yahay sidoo kale tilmaami karta higsigiisa dhow iyo kan fog wali waxaynu dhaxbarta uga jirnaa xog waranka taariikh ahaan dalka Burkina Faso iyo shakhsiyadii hogaamineed ee Thomas Sankara iminkana waxaynu ka hadli doonaa habdhaqankii bulshada iyo sidoo kale la qabsigiisii siyaasadda kusoo dhawaada qaybta labaad oo aad kala socon doontaan halkan waxaan ahay Idris Iman halkan Somali Freedom dans les établissements. Comment constatons l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyé. halbeegii uu u dhigay Sankara dadkiisa waxay bedeshay muuqaalka wadankiisa si loo mideeyo qaybaha bulshada iyo xiriirka dawladda wuxuu dejiyay qorshe uu ku joojinayo iskaashatooyinka iyo xisbiyada siyaasadda wuxuuna soo afjaray canshuurta gumaystaha wuxuuna xoojiyay xiriirka beeralayda Sankara wuxuu dadkiisa baray inay ku miliyaan isbeddelka siyaasadeed ee dalkooda wuxuuna siiyay fursadda ay kaga qayb gali karaan horumarinta dhulkooda waxaana caruurta loo bixiyay magaca budrigayaasha gacaanka si fikradda ah isku filnaanshaha dalnimo ay ula soo barbaaraan waxaa loo tababari jiray fikrad ahaan iyo siyaasad ahaan si marka ay weynaadaan ay uga feejignaadaan aragtida caqli gumaysi ee ninka cad inkasta oo da'yarta loogu dowlgalay inay dabcan xambaaraan aragti cusub tira ahaan ay isa soo tarayeen sanadba sanadka xiga haddana Sankara ma ahayn shakhsiyadda rumaysan inuu xoog wax lagu muquuniyo sida uu qabo Jean Sigler oo ahaa wariye qaramada midoobe ka tirsan oo aqoon dheer u lahaa Sankara sanad kadib iyo kaalintii haweenka de porter les mêmes tenues que les hommes. Je crois que c'est le premier chef d'État africain qui a donné des postes aux femmes autres que ministre de la condition féminine. Il avait nommé ministre du plan, ministre du budget et des femmes extrêmement compétentes. Il savait les trouver. sanadkii 1984 kadib isbedel xagga dhismaha ah oo lagu sameeyay nidaamka dawliga ah Afrika waxay indhaha la raacisay talaabooyinka maladooda ka fog ee Sankara la yimid wuxuu ku sii socday inuu isweydiiyo sababta bulshada Afrika aysan mudnaantii loo baahnaa u siinaynin haweenkeena tani waxay ka dhigneed shaqo loo abuuro haweenka dalka Burkina Faso si ay ugu noolaadaan nolol ay ku horumariyaan qoysaskooda wuxuuna noqday madaxdii ugu horeysay adduunweynaha oo xuquuqda haweenka u istaaga xilli dalkan dhaca galbeedka Afrika ay wax caadi ah ka ahayd guurka qasabka ah ku tagrifalka xuquuqda gabdhaha iyo awood sareynta ku dhisanimada Sankara wuxuu si raganimo leh u wajahay inuu diiradda saaro wax ka bedelkooda wuxuu fagaare walba ka difaacay xuquuqda inta la eg oo uu siiyay haweenka dalkiisa madmadowga jira ee haween badan lagu doosiyay xuquuqdooda wuxuu ka soo bilowdaa gurigooda labaad oo ah goobaha waxbarashada halkaas oo marka gabar iyo wiil xiriir ka dhaxeeya uu ku waabariisto inay uur yeelato kadibna laga joojiyo waxbarashada iskuulka halka wiilkii ay uurka u lahayna uu wali sii dhiganayo dugsiga maadaama ayuu yiri wiilka aan wax xisaab ama culays ah lagu saaraynin ficilkiisa wuxuu sii uuraynayaa gabdho badan isagoo hakad gelinaya hayaanka noloshooda Sankara wuxuu dhaqankan ku tilmaamay mid mugdi ah oo rajada haweenka liifada u gaabinaya laga bilaabo dugsiyada waxbarashada ilaa xarumaha xoogga dalka haweenka waxaa laga siiyay kaalinta muuqata waxay isugu jireen macallimiin taliyayaal unug booliis taraafiko dhaqaatiir iyo hawlaha kale ee la halmaala wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika oo xil wasiirnimo oo aan ka ahayn midka wasaaradda haweenka u magacaabo qof dumar ah siday xusuusan tahay Mary Roger Bilo oo ah wariye ku sugnaa Burkina Faso waqtigiisa
hase yeeshee la yaab sunniyaha lala taago wuxuu noqday markii uu 8 Maaraj oo ah maalinta haweenweynaha adduunka uu amray ragga dalkiisa inay suuqa uga soo adeegaan haweenka waxaa loo sheegay inay guryahooda ku sugaan adeega ay raggooda uga keenayaan suuqyada dhammaan wixii dumar ahaa waxaa la faray inay guryahooda ku sugnaadaan halka la arkay raggii oo suuqa ku dhex jira iyaga u adeegaya xaasaskooda waxay taasi u ahayd haweenka maalin farxadeed ragguna way ku raaxaysanayeen doorka ay maalintaas ciyaarayeen waxay sidoo kale soo ogaadeen qiimaha nolosha suuqa iyo heerka badeecaduhu joogaan. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas a dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception. Au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché, aujourd'hui c'est leur journée, elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. Et c'était bien, c'était bien. Se marrer, bon. Les hommes se plaisaient aussi. Et ils ont pu découvrir puisque cela a amené certains hommes à connaître les réalités des prix sur le marché. Les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrie ou la mort. haweenku waa xoog aysan wax magaratadu qiimeynin sida uu yiri madaxweyne Siyaad Barre waxa la yiri haweenka waa u taagan yihiin qaybta ugu weyn ee bulshada maadaama ay haddana yihiin kuwa soo barbaariya qaybta kale iyaga ayaa ka dhigan ama u taagan bulshada dhan hayeeshee mar walba oo aan u laabano islaamka gabadhu waa boqorad Ilaahay ku karaameeyay arlada dusheeda waxaana adeega looga dhigay in rag markay yar tahay waxa ababiya aabe markay aafan noqotana waxa adeega u asaygeeda marka ay gabowdana waxa daryeela awlaadeeda xitaa markii uu eebe ka hadlay sida uu awlaada ugu irsaaqo adoomadiisa wuxuu soo hormariyay magaca dhadig nabiga salawaatullaahi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ninkii gabadhiisa koriya akhlaaqda ku toosiya kadibna reer fiican ku ogaada waxaan aniga iyo isagu jannada ku nahay mid haweenka ku nool dalalka ay dagaaladu la degaan waxa aalaaba lagu qiimeeyaa halgankooda ay ka qayb noqdeen samata bixinta bulshadooda dulmiga ka dhanka xuquuqdooda waa kuwa ugu waaweyn ilaa maanta taagan kuwaas oo halis geeri ku dhamaata marar ku keenta nolosha haween badan kufsiga jirdilka guurka qasabka ah iyo u diidista inay wax barato waa mushkiladaha ilaa maanta muuqda ee haween badan ku ah nabar ku taagan laabtooda balse haween kale ayaa ku raaxaysta fursadaha aasaasiga u ah nolosha qofka aadanaha oo waliba awoodo inay doorkooda ku muujiyaan dhalinta iyo abuurista saameyn iyo waxqabadka gaara qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ay ka mid ka yihiin haweenka Soomaaliyeed waxay isugu jiraan kuwa la kulma dhibaatooyinka qaar iyo kuwa ku raaxaysta fursadaha aasaasiga ah doorkooduna wuxuu tan iyo mudaba ahaa mid muuqda siiba sanadihii burburka oo dhexda u xirteen daryeelka iyo buuxinta kaalintii kaga aadanay qoysaskooda waxay si aan la xusin u yihiin sirta qarsoon ee ku guuleysatay soo saarista jiilasha maanta jaamiciyiinta ee ku dhashay xilli kala carar iyo fawdo ah hubaashiina gaf ma ahan in la yiraahdo waa iyaga oo kaliya kuwa badbaado u noqday qoysaskii Soomaaliyeed ee kala baqa ku kala irdhoobay walina waa kuwa aan ka daalaynin inta karaankooda ah inay ku garab istaagaan kuwa aan codka lahayn iyo kuwa aan maanta helin ayaan nabadeed balse in la yiraahdo ma helaan haweenkeenu xuquuqdooda lama xiriirto in diin ahaan looga hadlayo waa caadiyaal in diinteenu 1400 oo sano ka hor ay xaqooda siisay haweenka muslimiinta ah balse mar walba waxa su'aali ka taagneyd haddii xuquuqaadkaas alla u jideeyay loo siin jiray si waafaqsan shareecada islaamka inkasta oo laga yaabo inaan isku si loo arag sida loo daryeelo ama loogu nuglaado dumarka haddana marnaba su'aal kama taagna in haweenku xuquuqdooda aan si sax ah loo siinin qaar baa ku dulman xaq aysan lahayn oo ay aaminsan yihiin inay ka faramarogsadeen raggooda qaar ayaa ku dhiban xaqii ay lahaayeen oo la duudsiyay casriga maanta waxa ayaan darro ah in wali la isweydiiyo haddii xuquuqaadkaas ay haweenkeenu wali si muuqda uga la'yihiin in rageedka ay dhaleen u dhaxeen lana dhasheen maadaama haweenkeenu yihiin lafdhabarta nolosheena iyo kuwa xaqiijiya guulaha dadnimadeena iyo hiigsiga
dowladnimadeenna waxaa muhiim inaan dib u fiirino sida loo duusiin jiray xuquuqaadkooda si maanta wixii maanta ka dambeeya aan u dhisno bulsho si midaysan u ilaalisa haybadda iyo sharafta haweenkeenna iyaga oo taas ku xoojinaya hubsashada in xaq walba oo alla jideeyay ay dhib yaraan ku helaan. lama helayo kacdoon bulsho oo dhab ah ilaa laga xoreeyo haweenka. indhahaygu ma sii jeclaysanayaan inay arkaan qayb bulshada ka mid ah oo codkooda la aamusiyo. dhawaaqa aamusnaantaasi waxaan ka maqlaa haweenkeenna, waxaan dareemayaa hugunkeeda hoose, waxaan dhursugayaa in kacaanku abuuro kalsooni ay haweenku ka qaadaan qaybta ay ka joogaan nolosha iyo horumarinta ummadda. Thomas Sankara, horjoogihii hore ee dalka Burkina Faso, ayaa laga hayaa eryadaas. qoraaga dhiganahani wuxuu qabaa in la gaaray waqtigii aynu si kama dambays leh uga dabaaldegi lahayn guulaha macnaawiga ah iyo kuwa muuqda oo haweenkeennu ku kordhiyeen nolosheena maanta. si horey loogu socdo geediga dowladnimada waa lama huraan in marka hore dib u eegis dhab ah lagu qiimeeyo doorkii nafhurnimada lahaa oo haweenkeenu soo qaateen waqtigii kala cararka iyo dagaalada. kacaanka isbeddelka leh ee ka dhex jira ururada haweenku wuxuu runtii u muuqdaa mid ka dheefsanaya dhaxalka hooyooyinkii shalay, kuwaas oo iyaga oo weli nool aan dowladnimada la helin ugu yaraan dhugashadii ay kaga fadhiyeen. qoraagu wuxuu qabaa inay timaado maalin qaran oo loo sameeyo haweenkeena soo saaray jiilka maanta, kuwaas oo dhexda u xirta inay buuxiyaan booskii ay faaruujisay dowladnimadu si loola noolaado xusuustooda. markaas ayaa bilis xaawaleydii ay soo ababiyeen waqtigii burburka loogu garab istaagi karaa inay halkooda kasii xejiyaan kaalintooda dahabiga ah. 30 sano ku dhowaad oo hooyooyinkeenu ku soo jireen inay u halgamaan nolosha milkiilayaasha dhabta ah ee mustaqbalka waddanka. waa in madaxda dalku ay si damaanad qaad iyo bogaadin leh culayska ay u soo sideen haweenkeena muddada badan uga qaadaan xal u helidda fursadaha nololeed ee ku maqan gacantooda. haddiise aysan taasi dhicin, waxa ayaan darro ah in hooyo walba ay iilka u hoyan doonto iyada oo aan helin xaqii ay ku lahayd dowladnimada. watahay daawadayaal, tani sidoo kale waa qaybtii labaad ee ka xog waramaysay sooyaal shakhsiyadeedka hogaamiyihii hore ee dalka Burkina Faso Thomas Sankara oo aanu ku eegnay la qabsigiisii siyaasadda iyo sidoo kale bal hogaamintiisa barigaas cusbeed siday u jaangoysay xal u helista mushkiladaha curdinka ahaa iyo dad badankooda aanu fahamsaneen hanaanka iyo hayaanka dowladnimada loo soo maray, balse isagu u qaatay inay tahay cashar markasta shucuubta dib loogu celiyo in la baro faham dowladeed iyo hanaqaad garaadka dadka ah. muuqaalka kan waxaad kala socoteen Somali Freedom, anigoo ah Idris Imaan ayaan idinla socodsiinay. Cabdiraxmaan Khaliif ayaa dhanka kaamirada iga caawiyay. anagoo wada jirna waxaanu idin leenahay ismaqal aragti dambe oo xiiso leh.